بسم الله الرحمن الرحيم عشركان waxaan ku baranaynaa sida loo manage gareeyo folderada leedahay sida looga dhigo secure ama looga ilaaliyo dadka kale oo kula isticmaalaya computerka si aysan u arkin folderadaada. Marka hadii aan isla fiirino waxaan tageynaa file explorer kadib waxaan tageynaa documents waa kuwana marka folderada ii abuurno oo computerka ku jiro kan waa tijaabo kii hore aan cashirka hore u sameeyno waaye. Marka hadaa rabto in aad manage gareyso folderadaada waxaad tageysaa meeshan ay view ku qoran tahay. View markaad tagto hadaa rabto folderada inay waaweyn ku noqdaan oo kale waxaad tageysaa extra large icons-ka meesha ku qoran tahay extra large icons. Markaad dul tago waa folderada waa ii weynaanayaan fiiri waaweyn ayay noqdeen. Kan small icons-ka fiiri hadaan ku dhufto kale small ayay noqonayaan. Extra large hadaan ku dhufto large ayay noqonayaan. Tiles-ka hadaan ku dhufto san ayay noqonayaan. Marka saas ayaa loo badbadashaa hadii aad rabto inaad weynaysato. Qaybtan kalena ayadana waa large oo oo qayb kale ah oo hadii aad large icons ku dhufato san ayay ku noqonayaa oo san ayay toos-tooskan ayay ku noqonayaa. Waa qaababka aad ka dhiganayso hadaa rabto. List hadaa ka rabto inaad ka dhigatana san ayuu ku noqonayaa oo toos ayuu ku noqonayaa folderkii uu israacaya. Waxaa kaloo jiro contents xoogaa space yar ayaad u dhaxaysiinaysaa hadaa rabto. Marka qaabkan ayaa loo manage gareeyaa oo loo sameeyaa folderada. Hadii aad rabto folderkan waxaa jiro user oo computerka kula isticmaalo oo user kale. Marka hadii aad rabto in folderkaaga aysan ka arkin useradaas oo aad ka qariso markay soo galaan computerka folderkaaga waxaa laga yaabaa in waxyaabo muhiim ah kugu jiraan. Qaabka loo sameeyo waxaad tageysaa options meesha ku qoran tahay options meeshan kore oo halkan waaye meeshan options-ka meeshas waaye. Hadaan isla fiirino kale marka option-ka hadaan tagno kale aan double click ku sameyno waxa ku soo baxaya Windows-kan. Windows-kan wuxuu ku tusinayaa marka hadii aan tagno kale open each folder in the same window hadaan ku dhufano midka kore oo aan dhahno apply wuxuu noo sameynayaa hadii aan furno kale tijaabo kale oo aan hadaan yareyno kale tijaabo aan furno kale folderkii uu igu jiray loo igu furaya macnaha same folder ayuu igu furaya midka uu ku dhex jiro ayuu igu furaya. Hadii aan tagno kale aan tagno options hadaan ku noqono oo aan dhahno open each folder in own way hadaan dhahno aan ku dhufano macnaha aan dhahno apply okay aan dhahno fiiri waxa dhacaya hadii aan gadaal u noqdo oo aan dhaho ii fur tijaabo Windows kale ayuu ii furaya. Hadaan double click ku sameeyo fiiri waa Windows kale ayuu ii furay. Kii hore waxa la igu furayay isla keygii ayaa la igu furayay. Marka labadaas option hadii aad mid doorato midka kore hadaad doorato same folder ayaa lagu furaya. Hadii aad kan kala dooratana wuxuu ku furayaa another window Windows kale ayuu ku furayaa. Marka hadii aan ku noqono kale options-ka oo aan dhahno kale view oo aan dhahno kale folderada marka hadii aad rabto in ay qof kale kula arkin oo kale oo aad kaliya aad rabto file muhiim inay kugu jiraan oo kaliya aad isticmaasho oo aysan userada oo computerka igu jiro computerka hadaan isla fiirino oo inta aan tagno oo aan dhahno Muhammad aan click ku sameyno kaas waa aniga fi arday ayaa la isticmaala iyo arday 1 labadan qofood ayaa computerka labadan qof marka hadii aan rabo in aysan iga arkin file-shayda ama folderadayda muhiimka ah waxaan sameynayaa marka hadaan idin tuso waxaan leeyahay tijaabo ayaan kor tagayaa right click ayaan ku sameynayaa properties ayaan tagayaa fiiri markaan tago waxaan sameynayaa hidden ayaan leeyahay hidden iga dhig macnaha tigto ii saaran tahay hidden iga dhig ayaan leeyahay. Hadaan tigto ka qaado ha ka dhigin hadaan laakiin tig siiyo waa hidden iga dhig apply ayaan leeyahay. Kadib waxaan tagayaa ku noqonayaa fiiri ila fiiri double click hadaan ku sameeyo oo aan dhaho view oo aan dhaho don't show hidden files folders drive hadaan click ku sameeyo fiiri oo apply aan dhaho fiiri wuu baxay tijaabo folderka tijaabo wuu baxay macnaha hadii uu qof kale soo galo computerkayga ma arkayo oo waa ka qariyay hadii fiiri hadaan dhaho view oo aan dhaho show hidden files wuu soo galayaa fiiriya intuu ka soo baxaya.
waa apply and fiir apply markaas dhaqan galay waa kana soo booday uu soo baxay fiir marka qaabkaas ayaa looga qarsadaa folderada macnaha dadka kale oo computerka kula isticmaali muhiim maaragtay wax adiga maaragtay gooni ku ah in qof kale inta furfurto oo wax rabo ku sameeyo xogaa dhibaato ayay leedahay marka folderada saas ayaa loo manage gareeyaa casharkeena intaas ayaan kusoo koobaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.